Amore, secondo me الهم يا مات maxaad ka haysaa? Macallimow, see kaa noqotay maanta khamiis waaye be maqaayadana iska soo aaday maanta la iska wareegayay badarna iska buuxiyaa rabaa beriya yaan adag leedhahay ila tali badar dhuuxee cunaa Oh, sorry. Waan iloway maanta khamiis inay ahayd. Cuntooyinku way fara badan yihiin. Maskaxdeydana hadda ma ku soo dhacayso cunto aan kugula taliyo. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa cuntooyinka inaad iska ilaaliso loo baahan yahay. Waxaad iska ilaalinaysaa cuntooyinka fudfudud iyo waxa saliidda badan lagu dubay. Cuntooyinkaas halis ayay kuu yihiin, waxna kuuma tarayaan, waana ku cayile. Isku dadaal marka, biyo badan cab. macallinow aan ku weydiiya cuntooyinka fudfudud maxaa ku nacay aaday u mac yihiin raqiis waaye naftaana jecel maxaad ku diidaysaa marka yaa sabab maa jirto maxaa ka dambeeya inaad saas u dhacdo Haa, waan kuu sheegi karaa, laakiin waa sheeko dheer. Meeshaanna waa buuq, bannaanka inagee. Sheekada adiga aan kuu sheego, daawadayaashana aan u sheego. Nawadii marka. Beertan ka waran see kula tahay? Waa meel aad iyo aad u qurux badan. Maskax degsi ayaanu imaadaa. Barbarna casharadeeda intaa ku diyaarsadaa iyo waxyaabihii aan soo jeedin lahaa. yes macallin waa meel aad iyo aad u qurux badan walaa waa ka helay maasha allah kaliya limaa maskax degsi meeshaan u imaanaysa macallinow dadka dhan maa isku wacdin casharka xataa inta inaanu siisidaa aad jeclaan lahayd sheekadii ilooway sheekadii iyo bilowba sheekadaa rabaa sheekadaadaa jecla Sheekada maanta aan kaaga sheekayn doono magaceeda waxaa la yidhaahdaa Aabbahay ayaa handooshka igu xiray maxaa yeelay waan cayilnaa. Waxaa jiray wiil aad u cayilnaa. Dhammaan wixii iskoolka la dhiganayay wiilkaas ayay caayi jireen oo waxay ku celcelin jireen butacow. Asigana dhibaatada keliya ee haysata waxay ahayd cunowgiisa ayaa zaa'id ahaa, nafsadiisa ma xakamayn karin. Weliba dhan wax inuu cuno loo rabay. Qof raashin wanaagsan kula talinayna ma laha, cunto fudud ayuu buri dhan cuni jiray. Markii uu guriga ku soo laabto, aabbihiisa ayaa ku qaylin jiray oo ku dhihi jiray, adiga faa'iido ma lihid, wax matare ayaa tahay. Wuxuuna ku qasbi jiray inuu aalmiiteeyo uuna qaato daawooyin laysku caateeyo. Xataa wuxuu ku qasbi jiray biyo qabow inuu ku qabaysto. Aabbaha wuxuu aaminsanaa biyaha qabow in lagu caatoowayo. Biyo qabow ayuu ku qasbi jiray inuu ku aalmiiteeyo. Laakiin arrintan waxba uma tarin wiilka, waayo aabbaha maba barin wiilkan cunto caafimaad leh ama cunto nadiif inuu cuno, mana kula talin jirin. Wiilka wuxuu bilaabay aabbihiisa inuu naco, wixii lagu amramaayna wax kaloo samayn jiray oo ka duwan. Aabbihiisa warka ma maqli jirin. Wiilkii ayaa bilaabay inuu badsado cuntooyinka fudfudud, wuuna iska daayay daawooyinka uu aabbihiisa siiyey oo isku caateynayay. Biyihii qabow ku qabaysa la dhahayna kuma qabaysanaynin, balse wuxuu ku qabaysanayay biyo kulul. Midaas waxaa u sii dheereed macmacaanuu ku soo daray, macmacaankuu aad u badsaday. Aabbihii wuu awoodi waayey wiilkiisa inuu ilaaliyo daqiiqad walba. Hooyadana wiilkeeday ka naxi jirtay, waxayna u sii karin jirtay macmacaanka. Allah hooy naxariis badanaa. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbihii ayaa dareemay wiilkan meeshuu ka caatoobi lahaa inuu sii cayilayo oo cayilkiisa wax ay ku darsamayaan. Aabbihii ayaa keenay qorsho. Aabbihiisii ayaa ku yidhi, diid ama yeel, kii ku caateelan ahaa aniga. Bisha soo socoto haddii aad wax iska dhimi wayso oo almiitooyinka aan ku siinayo aad dhihi wayso
waxaan kuu soo gadi doonaa handoosh. Sariirtaada beddelkeedana handooshka ku seexan doontaa. Wiilkii ayaa garan waayay waxa uu sameeyo iyo meesha uu talo ka bilaabo. Bishii ayaa dhammaatay si dhaqsi leh. Almiitooyinkii laga rabayna bishii dhammaadkeeda wuu dhihi waayey. Aabbihii wuxuu aaday suuqa, wuxuuna soo gaday handooshkii lagu balansanaa, wuxuuna soo dhigay qolkii uu wiilka degganaa. Aabbihii wuxuu jijibiyey sariirta uu wiilka ku seexan jiray, beddelkeedana wuxuu meesha u dhigay handooshkii. Hooyadii ayaa isku dayday inay ka celiso. Aabbihii ayaa ugu jawaabay, wiilkani aniga balan ayaa kala galnay. Balantan waa in la oofiyaa, si kastoo ay u adag tahay. Aabbihii ayaa ku qasbay wiilka inuu handooshka dhex galo oo uu ku seexdo. Markii uu wiilka ku seexday handooshka ayuu qolka ugu soo baxay, iriddana waa u soo laabay, nalkana wuu u damiyey. Wiilkii ayaa ku hurdi waayey handooshka dhexdiisa, dabadeedna dhulka ayuu iska seexday. Habeen habeenada ka mid ah ayaa aabbihiisa arkay asigoo dhulka iska jiifa. Wuu xanaaqay aabbihiisa. Subaxdii markii la gaaray, handooshkii ayuu wuxuu u yeelay daldaloolo oo hawada ay ka soo gasho, wuxuuna u yeelay meel qufil loogu xiro. Habeenkii dambe markii la gaaray, wiilkii waxaa lagu qasbay inuu handooshka dhex galo, kadibna waa lagu xiray. Aabbihiisii ayaa ku xiray. Subaxnimadiina waa u yimid oo wuxuu dhahay, almiito ayaa jirta subaxdan. Wiilka habeenkii oo dhan ma hurdin, almiitadii xataa wuu almiiteen waayey. Aabbihii aad ayuu u xanaaqsanaa. Habeen habeenada ka mid ah, hooyada iyo aabbaha meel ayay ka balansanaayeen ee u socdeen oo laga casuumay. Laakiin inta ay guriga ka bixin, aabbihii ayaa ku qasbay wiilka inuu handooshka dhex galo, wuuna ku qufilay sida oo ugu soo bixin. 4 saac camal markii la gaaray, ayagoo jidka ku soo jiro, aabbihii iyo hooyadii shil ayay galeen. Labadoodana meesha ayay ku dhinteen. Wiilka oo weli taabuudka ku xiran ama handooshka ayaa sugaya aabbihiisa inuu ka furo handooshka, laakiin qofba uma imaanin. Markii uu ku jiray in muddo ah, uuna waayey dhaqaaq iyo shanqar ka imaanayso guriga dhexdiisa, wuxuu bilaabay inuu qayliyo, lugahana ku dhufto geesaha, lacalla haddii uu qof maqlaayo. Qofba uma imaanin. Maalmo yar kadib ayaa guriga waxaa imaaday awootadiisa iyo awowgiisa. Sanduuqina ayay ka fureen, asigoo xaalkiisa xaal marayo oo rafaadsan oo nacaatooway. Ugu dambeyn, aabbihiisa inkasta oo dhintay, laakiin hawshiisii wuu ku guulaystay. macalin waa ka xumahay labadiisa waalid maadaama ay dhinteen. Aabbihiisana dadaalay ka ahayd maayna xumaato kama ahayn. Waan dareemay hadda cuntada fiican faa'iidada ay leedahay, mana cayili doone. Hadda kadib cuntadeeda waan ku dadaali doonaa. Weli kanaalkaadii ka waran, wax subscribe kuu saaray ma aragtay? yaa wax subscribe saaray weli ma lahan. Waa la yaabanahay dadkan wax ku dhacayo, ma fahmayaan miya? wax u taraya u soo gudbinaynaa, anagana wax subscribe noo saaraya ma lahan. Dhibka laga marayo mataqaanaa in la soo diyaariyo wax faa'iido leh. Waxaa ka fudud wax u tarayna in loo soo gudbiyo. taasi wax ma rabto. Kaamirada furo, iska hadal, xaaladaada ugu sheekee, kadib waqtigooda ka lumi. dadkaana la yaabo. macalin haddaad filin soo degtid ka waran, isteelkaadu wuu saxan yahay, atoorana waad u eg tahay. yaa ka waran, filnaa soo duway, filimaantana aaday u fiirsadaan soomaalida. ya qorsho fiican waaya, dadku dhaqaaqiisa ana xataa waa kula duuba. waa fikrad wanaagsan amoore, maskaxdaada aaday u shaqaynaysaa. daawadayaashaan la hadlaa markaan muuqaalkan haddii uu gaaro 10,000 oo like,
waxaa soo duubaynaa riwaayad ama filin. Marka idinkaa noo go'aamin karo haddii aan soo duubaynayo haddii kale ama sidaan haddii aan ku wadayno. Heerkan haddaa muuqaalka kusoo gaartay waxay la micno tahay inay sheekada kugu socotay. waxna ma kaa dhibaysa haddaa subscribe iyo like noo dhahdo. taageero weyn ay inoona tahay annaga. mahadsanid daawade mar labaad iyo mar saddexaad. meeshaasaa ugu baxnay muuqaalkeenan meeshaasuu ku eg yahay. nabadey. Peace.